waxaan isugu nimid inaan ka hadalno arintii ninka la yiraahdo dhacdadii ka dhacday habeen dhaweed meesha la yiraahdo Habar Cirir oo lagu dilay labada shakhsi oo maaragtay safarka ah oo wax dhibaato geysan runtii marka koobaad arintaas aad iyo aad ayaan uga xunnahay anigoo ah taliye saldhigga degmada Gurceel iyo laamaha amniga qaybahooda kala duwan aad iyo aad ayaan arintaas uga xunnahay marka koobaad marka labaadna runtii waxa lagu bixiyay arintaas oo ay ku bixiyeen ciidamada amniga qaybahooda kala duwan dadaal iyo juhdi sidii lagu maaragtay soo qaban lahaay dadkii dhibaatadaas geystay iyo dadkii fududeeyay intaba sidii lagu soo qaban lahaay dadaal iyo juhdi fara badan ay ku bixiyeen ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxa mahad iska Allah subhanahu wa ta'ala arintaas waa lagu guuleystay dadkii lagu eedeynay arintaas waa la soo qabtay gacanta ay ku jiraan waxaana la rabaa hadii alla yiraahdo insha Allah ta'ala inay ka macaamilaan qaabka uga macaamilayaan uga macaamileen dadkii arintaas ay qusaysay oo maaragtay labada garab ahay kuwa ay markaa eedeysanayaashu ay maaragtay ka soo jeedaan iyo kuwa markaa dhibanayaashu ay ka soo jeedaan inay ka macaamilaan sidaas ayaa maaragtay la rabaa oo u haynaa laamaha amniga ayaa gacanta ku haya waana haynayna insha Allah ta'ala inta maaragtay arintaas qabaa'ilka ama labada garab oo arintaas ay qusaydo ay maaragtay kaga heshiinayaan waa ku soo dhaweynaya saraakiisha garbahayga fadhida ayaa dhameystiri doona wixii markaa aan qabiyay dhacdadaas oo dhacdo xun ah dad masaakiin oo safaray oo xoolo wata oo magaaladan u soo safreeyay ahaayeen waxa la ii sheegay nimankan cadawga oo meesha jooga ummadan indhaha faraha ka gelin inay ka dhuumanayeen u diidayeen canshuurta iyo dhaca ay ku hayaan oo ka badbaadsanayeen naftooda iyo maalkooda ayadoo saa ay u caraan dad mudoomin la dulmay oo dadkii xorriyad aan haysan ay yihiin haddana ay safar yihiin in wadada loo galo dhibkaas oo dhacay waa ka xunnahay wax aan ku farxinay wax muslim ku farxa ma aysan ahayn ayagoo cadawgii Soomaaliyeed ka dhuumanaya in wadada loo galo ay la dilo waa xunta arrin xun ay ahayd waa ciidamada iyo saraakiisha iyo dhammaan dadka deegaanka degan intaba way ka xanuunay ku qabatay arintaas waana wada birmanay waana soo helnay insha Allah hal nin naga dhiman dadkii u fududeeyay iyo dadkii sameeyay intaba gacanta lagu soo dhigay hal shakhsiya ka dhiman halkii shakhsina asagana waa ku raad joognaa waana soo qaban doonaa waxaan marka codsanayaa in dadkaas cadawga loo korkiciyo anigu wixii kala wara taliyaha dhameeyay oo wax dhiman oo kale ma jiraan qaabkii wax u dhacay iyo qaabkii loo soo qabtay taliyaha ka hadlay hal qodob aan ku diri rabaa in dadkaas cadawgu haysto koob iyo 10 sano cadawgu maskaxda ka haysto in hadii Ilaahay ku idmaayo laga kiciyo sabab ay u tahay nimankan inay meesha ku dhintaan waxay ugu gaarigu tago oo ay ka dhaxdooda ka soo qaadi lahaa magaalooyin badan aysan hadda aadi karin oo safri lahaayeen Habar Cirir ka soo dhuntaan ma aysan imaadeen kuma dhinteen arintaas waxa sabab u ah nimankan cadawga ah shabaab waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaan jecelahay inuu ku gaarto fariintayda iyo ra'iisul wasaaraha dalka inay hadda saacadan laga bilaabaan sida cadawga looga kici lahaa dadka inay falankeeda galaan lama heshiisi karo hadda ninkii dhankaan sokay wax ku dila ee dhanka xagga aada lagama howlgeli karo waa ognahay inaan laga howlgeli karin saacadan hadda aan saacadan marayn wixii laga howlgeli karo waa dhulkan xorta aysan haysan sida looga soo howlgalana hadda aragtay indhihiina shanta waa kuwa nimankii dhibka geystay horteedii fadhiyaan sidoo kale caawa hadii ta dhanka ka yimaadaan ay dhib geystaan waxa ogtihiin inaan ciidamada amnigu aysan ka howlgeli karin dalka mas'uula ka tihiin dhamaantana mas'uulan ka nahay waxaan codsanaynaa in laga kiciyo ummadan cadawga la iska dhaafo waxyaabaha kale iyo qorshooyinka kale siyaasadeed oo dhib ka badan si la iskaga kici lahaa cadawgaana hadda saacadan lagu dhaqaaqo dadka deegaanka deganna ay garab naga siiyaan nimankan cadawga ay koob iyo 10 sano dadkii ay maamulayeen way dadkan adkaasimi waa ka soo dhamaaday xoolihii waa ku qabsadeen dadkii waa ku qabsadeen maalkii waa ku qabsadeen fakaday ka kala yihiin haday arkaan dad inay xoreeyaan rabaan oo daacad u ahna in ay la dagaalamaan diyaar u yihiin mudane madaxweyne mar labaad kugu soo celinayaa iyo ra'iisul wasaare nimankan dadka aan ka kicino aan u dhaqaajino ummadda islaamkana aan ka badbaadino waxaan inta markaan uga gudbo taas waxaan u sheegaa dadkii ahalka ay wax gaareen oo deegaanka joogay nimanka waa la hayaa
ciidamadu waa shaqeeyeen meydkii waa la asturay waxaan ognahay in la idiin diiday inaad meydka soo doonataan waxaan ognahay in la idiin diiday inaad asturataan gumeesi ka weyn iyo dhibaato ka weynu ma jirto laba marna lama dhinto hal maraa la dhintaa waxaan codsanaynaa inaad diyaar garowdaan ciidamadu waa idinku soo socdaan dawladdu mar dhow waa idin soo gaaray inaad diyaar garowdaan taasna waan idinkula talinayaa inaan haddeer dhibkaan dhacay aan dhib laga daba marin oo shaydaan faa'iidaysana waa codsanayaa maadaama nimankana xiran yihiin odayaashana galabta ay meesha ku diyaarsan yihiin arrintaas inay xalliyaan ay rabaan